hooyadii iyo xaaskiisa iyo ilmo yar oo asaga u dhalay. ninkii managerka ayaa wuxuu yidhi in hooyaday iyo irsaaqadeedii sida hooyaday u tagtay ay irsaaqadeedina meesha uga baxday. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. walaalayaal waxaan jeclaystay in aan idinla wadaaga qiso aad iyo cajab gelisay. qisadaasi waxa weeyaan waxaa jiray nin faqiir ah, wuxuuna ka shaqayn jiray goob ganacsi ah. ninka wuxuu quudin jiray hooyadii iyo xaaskiisa iyo ilmo yar oo asaga u dhalay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkii shaqadii imaanin. dabadeed ninkii managerka ayaa wuxuu yidhi si uusan ninkan mar dambe u maqnaanin lacagta u kordhi, wuxuuna siiyey 1 diinaar ayuu u ziyaadiyey. ninkii ayaa maalmaha ka mid ah haddana aan shaqadii soo xaadirin oon imaanin. ninkii ayaa xanaaqay managerka ahaa, wuxuuna ka goosaday 1 diinaar ee uu lacagta ugu kordhiyey. dabadeed ninkii muusan weydiinin labadii jeerba. markii uu kordhiyey muusan dhihin maxaad igu kordhisay, markii uu ka jartayna muusan oran maxaad iga jaratay. ninkii ayaa yaabay managerka ahaa, wuxuuna u yeeray ninkii faqiirka, wuxuu ku yidhi warbal kaalay, waxaan kuu ziyaadiyey lacagtii, sababta imaadan weydiinin. haddana waan kaa jartay, sababtana imaadan weydiinin. sidee way u jiraan? wuxuu yidhi markii aad lacagta ii ziyaadinaysay waxaa ii dhashay ilmo yar, waxaanan yaqiinsaday ilmahan yar ee dhashay in irsaaqadiisii uu dunida la yimid oo saas ku timid. Allahu akbar. markii labaad ay iga jaratayna oo shaqada aan imaanin waxaa iga geeriyootay hooyaday. markaasna waxaan aaminay oo aan yaqiinsaday in hooyaday iyo irsaaqadeedii sida hooyaday u tagtay ay irsaaqadeedina meesha uga baxday. Allahu akbar. balay qanaacada lagu sheegaya iyo hodantinimada lagu sheegaya waxa weeyaan in aad ku qanaacdid wax walba Allah subhanahu wa ta'ala ku qoray kuna qadaray. ninkii ayaa yaabay. haddaba miyaysan ahayn qiso mudan ku cibro qaadasha in qofka uu si dhab u yaqiinsada in Allah subhanahu wa ta'ala wax walba xaqiisa ay ka yimaadaan. wuxuu yidhi xabiibka sallallahu alayhi wa sallam wardi bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. waxaad ku qanaacdaa wax Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyey, waxa hubaal ah inaad noqonaysid qofka dadka ugu hodantisan. hodantinimada micnaheeda ma ahan maal badan oo heshid, guryo dheer oo degtid. hodantinimada waxa weeyaan qanaaca in qofka wax Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyey uu ku qancay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.